السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض وديال ميل كستو joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiya News qodobada aad wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland oo ku warbixiya dagaal saaka magaalada Laascaanood ku dhexmara ciidanka qaranka iyo ciidamo huwan oo maalmihii u dambeeyay lagu ururinayay caasimadda gobolka Sool ee Laascaanood madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka hadlay dagaalka magaalada Laascaanood iyo xiisadda ka taagan maamulka Puntland sidoo kale intuu warku socdo waxaad ku daawan doontaan khasaaraha dhimasho ee dhulgariirka Turkiga iyo Syria oo dhaafay 5,000 oo qof daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan Border Mills waxay kuugu bishaaraynaysaa daqiiqda cad iyo budo isku jira iskuna dheeli tiran whole wheat flour iyadoo kiilooya iyo xirmooyin sidoo kale waxaad naga helaysaa daqiiqda cad iyadoo rufaca 12 kiilooya badh oo aad kaga raysato daqiiqdii la miisi jiray iyo 25 kiilo ama half weydii bakhaarka kugu dhow Border ma haysaa taliska guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa ka warbixiyay dagaal subaxnimadii saaka magaalada Laascaanood ku dhexmaray ciidanka qaranka iyo ciidamo huwan ah oo maalmihii u dambeeyay lagu ururinayay caasimadda gobolka Sool war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka qaranka ayaa lagu sheegay in ciidanka qaranku ay dagaalka saaka ku qabqabteen maxaabiis iskugu jira maleeshiya beeleedka deegaanka u dhashay xubno ka tirsan kooxda xagjirka ah iyo askar ka mid ah ciidamada BSF ee maamul goboleedka Puntland ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku jira iska difaacidda weerarada kaga imanaya kooxaha argagixisadu waxa ay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo iskugu jira argagixiso ciidanka BSF ee maamul goboleedka Puntland iyo dad deegaanka ah oo la soo qalday sidaas ayaa lagu sheegay warka ka soo baxay taliska guud ee ciidanka qaranka warku waxa intaasi ku darayaa in ciidamada qaranka Soomaaliland ay xorriyadooda u celiyeen maxaabiis u dhashay deegaanka oo dagaalka ku dhaawacmay kuwaas oo lagu wareejiyay heeladooda kumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay sii deysay maxaabiistii u dhalatay deegaanka kuna dhaawacmay dagaalka ka socda Laascaanood oo heeladoodii lagu wareejiyay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku santan yihiin geesinimo iyo daacad waxaa xusid mudan in ciidanka BSF-ka oo ka howlgala gobolka bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa loo aasaasay la dagaalanka kooxaha xagjirka ah waxaana tababar iyo hubka siiya ciidamada Mareykanka dagaalka ka socda magaalada Laascaanood oo bilaabmay shalay galinkii hore ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaadhay ciidamada qaranka iyo ciidamada huwanta ah ee ku sugan magaalada Laascaanood madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda adag ee magaalada Laascaanood iyo xiisadda ka soo cusboonaatay maamulka Puntland ugu horreyn madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka tacsiyay dadkii ku dhintay dagaalada haatan ka socda magaalada Laascaanood isagoo shaaca ka qaaday inuu ka xun yahay xiisaddaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in arrinta Laascaanood ay tahay mid siyaasadeed xalkeedana ay tahay in lagu raadiyo deganaan iyo wada hadal madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale ku baaqay in la sameeyo xabad joojin kadibna labada dhinac ay isku yimaadaan miiska wada hadalka si xal looga gaadho xaaladda Laascaanood saakay waxaan fariintan soo diyaariyay u gudbinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa dalka iyo dadkaba sidii loo nabadeyn lahaa nabad laga shaqeyn lahaa waxaan rabaa si gaar ah inaan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay shaqaaqadii dhawaan ka dhacday magaalada Laascaanood dhibaatada magaalada Laascaanood ka dhacday waa fogtahay waa dhibaato culus in hore badanna waan ka dignay waana ka hadalnay haddana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo marka hore dadkii meesha ku dhintay qoyskii dadkii kale odayaasha ahaa dhammaan waxaan leeyahay samir iimaan Allah naga siiyo inta ku dhaawacantayna muxuu Allah caafiyo nasiib darro weyn waaye maanta in Soomaaliya meel ka mid ahay wali qoray la soo qaato arinta Laascaanood iyo Sool iyo Sanaag hadda ka hor dhowr mar aan ka hadlay مواقف الدولة الفدرالية iyo aragtidayda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aan wax weyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan dhinac walba leh
waa dad wiil iyo walaal ah, wiil iyo abti ah, waa dad maxaan ku yiraahdaa inan iyo sodogiis iyo inan seedigiis ah, dad isdhalay isdhex degay isla dhasha waay. waxa isku haystaan marka jir nacayb iyo dad nacayb maahana waa siyaasad. horena waxaan u yiri aan u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaasi sool iyo sanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo. siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinayo ayaana xalka muxuu ahay sool iyo sanaa ay ku dhex jiraan. sidaas daraadeed waxa meeshaas ka dhacaya waa ka xunahay, raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa qoray lagu xaliyana suurtagal maaha. rabitaanka dadka ha la ixtiraamo, qoryaha ha la dhigo, xabadda ha la joojiyo, ha la wada hadlo, miiska wada hadalka ha la isugu yimaado, ha la wada hadlo. dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda haddaan ay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlaayo iyo cid kasta oo nabadaasi inay ka hadasho jecelba inaan aniga garab taaganahay, u safro tuulada ugu fog hadday tahay inaan tagaan diyaar u ahay. laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacan salaano oo aan nabadan aan ka dhalinay aan dhahno xabadka isku saarno waa laga roon yahay. balaayada bootin bakayle ayay leedahay, ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin. berri inaan xabadka isa saarnay inaan hubo in la heshiinayo yaanan meydadkeena iyo xabaalaha dushooda yaanan ku heshiinin, dadku intay nool yihiin aan heshiino. ha la joojiyo maamulka cidda sheeganaysa, cidda odayaasha dhaqanka ah, culamaa udiinka, mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta, qof walba doorkeeda nabadeed ha qaadato. colaada laascaano siima socon karto, lamana aqbali karo. ha la joojiyo, miiska wadahadalka la isugu yimaado. dowladda federaalka waxay diyaar u tahay inay fududayso, ka qayb gasho, kaalmayso. haddii toos dadka hadda ay colaadu dhex martay ay u wada fariistaan arinta waxaa ka socda laascaano waa aragti siyaasadeed. aragti siyaasadeedna qoray kuma xalisanto, xalkeeda qoray kuma yimaado. kan raba iyo kan diidanbo xalkeeda qoray kuma keeni karaan. ha la isu yimaado, ha la wada fariisto. mar walba horaan uga shaabana mushkiladda ka jirta sool iyo sanaag waxay ku dhex jirtaa xayndaabka jirinta aan jirinayna arrinta midnimada. arrinta midnimadana anagu go-aanay naga tahay xoog inaan ku raadino ma doonayno, nabadaan rabnaa inaan ku raadino. dadka rabitaankiisana hala dhowraan leenahay. meeshaasi colaadaasi colaad dadka qabata maaha, dadka Soomaaliyeed ma qabato, dadka deegaanka guud ahaanna ma qabato. ha la joojiyaan ku baaqaynaa mar kale. culamaa udiinka iyo odayaasha dhaqankane ayagaa deegaanadaasoo dhanba nabadeeda weligood ka talin jiray, nabadda ha ka taliyaan. inta qoryaha dadka haysta amarka kuleh ama kuleh maxaan ku raadayay raadka kulane ha la hadlaano, ha joojiyaano. wiilasha qoryaha laga qaado, ha la damiyo colaadda. intaas Soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colaada ka jirta ha la joojiyo, xumaanta ha la joojiyo, nabadda ha lagu baaqo. lama aqbali karo dhiig kale oo Soomaaliyeed oo daata, wax la aqbali kara maaha. meel kasta ha joogo, sabab kasta ha loo soo waxeeyo. haddiina markaas aanan lagu difaacaynin diinta iyo dalka iyo dowladnimada. laakiin reer hebel iyo degaan hebel iyo koox hebel sidee warkeyga u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma doonayno, muxuu ahaay xalkuma noqde. dhanka kale madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay magaalada Garowe ee xarunta Puntland. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in la dejiyo xaaladda isla markaana la ilaaliyo nabadda. halka rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha reer Puntland iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta iyo maamulka dowladda meesha ka jirtaba ayagana waxaan ugu baaqaynaa nabad. walaalayaal warku balaayadu marka ay bilaabanaysa meelo khafiif oo sahsaalan ay ka bilaabataa, meelo fog ay ka bilaabataa. dalkaas iyo dowladdaas iyo deegaankaas reer Puntland nabaday weligood haysan jireen, nabaddii inay haystaanaan la jecelnahay. ayaguna waxaan ugu baaqaynaa in arinta wada hadal lagu dhameeyo. odayaasha dhaqanka ha qaataano kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalinta nabadeed, haddana ay qaateen. waanu ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee u istaagay arrintaas in nabad lagu soo xaliyo. arrinta nabad ha lagu xaliyo. dowladda federaalka Soomaaliya sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabadaas ka qayb qaadanaya, laakiin ma saacidayno, ma taageerayno, raalli kama ahin in mushkiladaha na dhex yaala in qoryo aan isu qaadino ku xalino. kuma xalli karno, nooguma xalismayaan. baraan heshiinaynaa ilaa meelan kala aadayna male. xabaalaha korkooda yaanan ku heshiinin, nabadda korkeeda aan ku heshiino.
deegaanada dhan intaasaan ugu baaqaya meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wada hadalaan ugu baaqaya waxaan hadda isku haysanaa isma necbin waa siyaasadana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa kaliya ku yimaado waa dariiqa dimuqraadiga ah oo in la wada hadlo ah hal la wada hadlo annagoo dhaqankeena suuban ilaalinayna diinteena ilaalinayna dadkeenana u turayn daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitabinteena wareerinta warkan warkayga kulmi doon waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu